هل هذا feedbacks are the breakfast of champions in feedback lagu siiyay waa waxa aad u baahan laga yaabaa productigaaga oo aad wax yar ka badashay servicekaaga oo aad in yar u samaysaa inaad wax ka badashay inay ku samaysaa inuu businesskaaga meel fog gaaro waxaad arkaysaa saan videoga hore kaga hadlay oo aan aad uga naxaa Nairobi markaad tagto ama Mareykanka laftiisa markaan tago dad Soomaali oo u qaba businessku inuu yahay inay only alaab qaali soo dhigaan ama meel qaali ah ay qorsheeyaan inuu business u noqdo laakiin aan ogsoonayn in dadka frontiga joogay ay u baahan yihiin inay feedback weydiiyaan cuntada lagu keenay ka waran serviceka lagu keenay ka waran haddaba example aan rabaa halka inaan ku galiyo oo aan waraysi yar ama ma aragtay in yar ka waraystay sida uu u shaqeeyo oo aan aad u garanayo tradingka maqaayada weyn ee CJ la yiraahdo ay Soomaalidu leedahay weligaa CJ ma tagtay ma aragtay managerka CJ joogay waxa uu fiirinayaa ama eegayaa qof kasta iyo sida loo service gareeyo inta badan inuu ku dul yimaado laga yaabaa laakiin adiga waxa laga yaabaa 7 qofood oo saaxiibo ah inaad inta hayr gareysa aad mid manager uga dhigtay waxaan inta badan arkaa 7 daqiiqo 10 daqiiqo 15 daqiiqo maqaayad ama meel cafeteria fariisatay oo qofkii ku imaanay uusan wali ku imaan laakiin qofka iska leh oo Soomaaliga ahi uu ku bixiyay lacag aad u fara badan dhismihii ba tradingkii uu ku bixiyay zero amounts that's why aan ugu talagalnay dadka businesses kale dadkooda inay trading qaataan oo ay sameeyaan not only inay trading qaataan in qofka managerka oo inta qofkii u yimaado uu weydiiyo feedback how's your service ska war servicekaaga maanta see aha sida wax lagugu qabtay ka war ma ku qanacsan tahay qof kale ma u sheegi lahayd ganacsigeena inuu yimaado aad baan kaaga mahadcelinaynaa inaad timaadaay because qofkaan uu dhaqaalo ku keenay waxaan istaagay maqaayada kamid ah maqaayadaha shaaha laga cabo oo Kenya oo la yiraahdo Jaffa Malaria markaan Jaffa ka cabay islaantii ama qofkii isiinayay wax iga gaday ba aniga iyo dhowrkii qofood oo meesha taagnaa wuxuu noola dhaqmay si aan qurux badnayn dan markaan leenkii soo gaaray dadka kale eraya kale isticmaalayeen ba waxaan ku yiri how long meeshaan ka shaqeynaysaa yaase ku bay gareeya markii ay indhaha markii ka sii waxaan ku yiri paymentigaaga wuxuu ka yimaadaa dadkan leenka ku jira oo serviceka ama maaragtay productga aad gadaa ka gadanaya sida awgeed booskaagu ma ahan maybe qofka ka soo xanaajiyay booskaagu waa qofka aad lacagta bixinayo annaga ah si fiican ula dhaqan si aad u hesho shaqo joogta